بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو dhawaada wararka subaxnimo ee xogta ciyaaraha qodobada aan idin soo gudbin doona waxa kamid ah Eden Hazard oo kadib soo bandhigistiisa ka hadlay ku biiritaankiisa Real Madrid muxuu ka yiri riyadiisii u rimowday ee uu ugu biiray Real Madrid warbixin ayaan idin kaga hayaa sidoo kale wararka Eden la xiriira waxa kamid ah Hazard waxa uu ka warbixiyay sheeko dhaxmartay isaga iyo Luka Modric oo ku aadanayd inuu weydiisay inuu siiyo lambarka 10aad ee uu Modric xiran yahay laakiin jawaabtii uu Modric bixiyay ayaan warbixin idin kaga hayaa oo idin soo gudbin doona waxyaabo kale aad kula socon doontaan wararka subaxnimo ee xogta daawadayaal waxa kamid ah Chelsea iyo Juventus oo ugu dambeyn heshiis ka gaaray in macallin Mauricio Sarri uu noqdo macallinka kooxda Juventus taageere Barcelona oo lagu dhex arkay garoonka Santiago Bernabeu kadib soo bandhigistii ciyaaryahanka Eden Hazard taageerayaasha Real Madrid ayaa ku qasbay inuu funaanada Barcelona siibo warbixin ayaan idin kaga haynaa daawadahaasi Eden Hazard inuu arko u yimid garoonka Santiago macallinka kooxda Juventus ka tagay ee Massimiliano Allegri oo la xaqiijiyay inuu san tababaro u noqon doonin kooxda Chelsea taa beddelkeedana Chelsea ayaa ku dhawaaqi karta asbuuca soo socda macallinkeeda cusub oo noqonaya Frank Lampard wararkaasi ayaan daawadayaal idinku waayaa xogta ciyaaraha soo dhawaada aan ku bilaabay kooxda Juventus ayaa heshiis rasmi ah waxa ay kala gaartay macallin Mauricio Sarri kooxda Chelsea si uu u noqdo macallinka cusub ee kooxdaasi marwada duqda ee Talyaaniga Chelsea Juventus ayaa lagu soo waramayaa in heshiis buuxa ka gaareen arrinta tababare Mauricio Sarri haatan uu qarka u saaran yahay in si rasmi ah Juventus u soo bandhigto macallinkeeda cusub wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in Juventus ay ku guuleysatay in ay Chelsea ku qanciso in macallinkeeda Mauricio Sarri ay markaasi la wareegto kooxda Juventus ayaa haatan kooxda ugu cadcad ee uu markaa u wareegi karo Mauricio Sarri kadib fasaxa Massimiliano Allegri ay fasaxeen waxaana haatan la leeyahay 60 jirka reer Talyaani ee Mauricio Sarri ayaa lagu soo dhawaaqi karaa ama kooxdu ay ku dhawaaqi kartaa maalmaha soo aadan wariye lagu magacaabo Joseph Bartsch oo ka hadla ama ka howlgala telefishinka The Telegraph ayaa sidoo kale bartiisa Twitterka ku yiri Sarri waxa uu noqon doonaa tababaraha xiga ee Juventus heshiiska ayaa la isku raacay iyadoo Chelsea ay helayso 10 milyan oo magdhow ah hore laga helayo in lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Chelsea ay tababaraha xiga ee kooxdeeda u magacaabi doonto halyeyga kooxda ee Frank Lampard kaasoo noqon doona macallinkii ugu horeeyay ee England ah ee Blues la iliyay muddo 23 sanadood laga joogo Lampard oo markaasi kamid ah halyeyada kooxda Chelsea 13 sanadoodna ku soo qaatay garoonka Stamford Bridge ayaa haatan waxa uu macallin u yahay kooxda lagu magacaabo Derby County dadaal badan ayuu muujiyay Lampard xil ciyaareedka uu leelinayay kooxda Derby County iyadoo taasi ay soo jiidatay milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich oo la dhacsan qaabka macallinka kooxda Derby County Frank Lampard isagoo aaminsan in wax badan markaa uu ka bedeli karo ama uu ku soo kordhin karo ciyaartoyda kooxda Chelsea ayaa maalin ka hor waxa ay kulan la qaadatay Frank Lampard iyagoo oo ku qanciyay markaa inuu macallin u noqdo kooxda Chelsea haatan warbaahinta ayaa ku waramaya in Lampard lagu dhawaaqi karo maalmaha soo socda isagoo ah macallinka kooxda Blueska ama Chelsea waxa la aaminsan yahay oo taageerayaasha Bluesku ay leeyihiin Lampard hana loo keeno wax badan ayuu dabcan noo qaban karaa sidii markii uu ciyaaryahanka ahaa wax badan kooxda ugu qabtay diyaanu eegno dhinaca iyo soo bandhigistii ciyaaryahanka Eden Hazard xalay ayaa lagu soo bandhigay garoonka Santiago Bernabeu oo kooxda Real Madrid ay si rasmi ah taageerayaasheeda ugu soo bandhigtay garoonka Santiago Bernabeu ayay soo buux dhaafiyeen taageerayaasha kooxda Real Madrid iyadoo markaa loo arkayay inuu yahay mid kamid ah ciyaartoydii ugu taageeraha badnaa ee kooxda Real Madrid ay soo iibsatay garoonka ayaa waxa isqabsaday sawaxan iyo sacab iyadoo sawirada ciyaaryahanka ay taageerayaashu horay u soo qaateen garoonka gudihiisa iyo ilaa banaankiisa ayay taageerayaashu sacbinayeen markii Eden Hazard uu garoonka soo galayay Eden Hazard ayaa la hadlay taageerayaasha isagoo yiri aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad ii soo dhaweyseen kadibna saxaafadda ayuu Eden Hazard war kooban siiyay waxa uu yiri aad baan u faraxsanahay waxaana ii rumowday riyadeydii waqti dheer aan ku riyoonayay madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa yiri waqti dheer ayaan ku haminayay in Eden Hazard aan ku soo biiriyo kooxda Real Madrid haatan ayay suura gashay aad buu u mahadsan yahay inuu markaa aqbalay kooxdan riyadiisa ahayd ee weyn Eden Hazard ayaa waqti dheer la xiriiriyay kooxda Real Madrid funaanada uusan ku qorneen magaciisu ayaa lagu sawiray ciyaaryahan Eden inkastoo la leeyahay waxa ugu cadcad waxa uu xiran doonaa lambarka 7 ee uu ka tagay Cristiano Ronaldo oo haatan xiran yahay Mariano Diaz
sheekooyinka xiisaha badan ee soo bandhigistii Eden Hazard laga qoray waxaa markaa ka mid ahaa taageerayaal kooxda Barcelona ayaa garoonka Santiago Bernabeu waxay u yimaadeen in ay soo dhaweynta Eden Hazard ka qayb galaan oo ay halka ku arkaan ciyaaryahanka muhiimka ah ee ay Real Madrid la soo wareegtay. waxaa kaamirooyinku ay qabanayeen taageerayaal Barcelona oo funaanada iska bixinaya isla markaana aad bay ugu sacbinayeen taageerayaasha Real Madrid ee garoonka Santiago soo buuxdhaafiyay. waxyaabaha markaasi sidoo kale halka lagu arkay waxaa ka mid ahaa Eden Hazard ayaa la leeyahay waxa uu noqday mid ka mid ah ciyaartooydii ugu taageeraha badnaa ee kooxda Real Madrid ay soo iibsatay. garoonka ayaa u muuqanayay mid ay ka socoto ciyaar xiiso badan sida loo soo buuxdhaafiyay marka loo eego. wararkii Eden Hazard ayaan weli ku jirnaaye isagoo la hadlayay saxaafadda ayuu yiri Eden Hazard waxaan xiriir la sameeyay Luka Modric intii aanan soo gaarin garoonka. waxaan awooday inaan la hadlo Luka Modric anigoo u sii dhex maraya Mateo Kovacic oo aan Chelsea ka wada ciyaaraynay. waxaan ahaa mid kaftamayay markii aan weydiisay Luka inuu siiyo lambarka 10aad ee uu xiran yahay. wuxuu isagu igu jawaabay maya, hadda waxaa waajib igu ah in aan raadsado lambar kale. waa sheekadii dhex martay Eden Hazard iyo Luka Modric. waxa uu muujiyay Eden Hazard sida uu u jecel yahay inuu xirto lambarka 10aad ee kooxda Real Madrid. haatan wuxuu xiran doonaa baa la leeyahay Eden Hazard lambarka 7aad ee kooxda Real Madrid ee uu ka baxay ciyaaryahankii muhiimka ahaa ee kooxda Cristiano Ronaldo. macallinkii hore ee kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa la xaqiijiyay in uusan maamuli doonin kooxda Chelsea oo doonaysa xilli ciyaareedka cusub in markaa ay la soo wareegto. kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa shaacisay bartamaha bishii la soo dhaafay in macallin Massimiliano Allegri uu markaasi naadiga ka tagi doono dhamaadka xilli ciyaareedka kadib markii uu kula guuleystay 11 koob muddo 5 sanadood ah oo kooxda la ilinayay. Allegri waxa uu markaa carabka ku dhiftay in uu qaadan doono sanad kale oo uu markaa ka nasanayo maamulida ciyaaraha kubadda cagta kadib markii laga ceeriyay shaqada kooxda reer Talyaani ee Juventus. 16 sano oo ugu dambeeyay waxaan dareemay daal. waa inaad waqti u heshaa inaad ka fogaatid waxyaabaha aad mar walba samaysid isla markaana aad waqti la qaadataa qoyskaaga iyo saaxiibada ayuu yiri macallin Allegri oo doonaya inuu sanad kale ka naso maamulka kubadda cagta. taas ayaa meesha ka saaraysa in kooxda Chelsea uu markaasi ay la wareegayso macallin Allegri. taageerayaasha kooxda Real Madrid ee xalay soo buuxdhaafiyay garoonka Santiago Bernabeu ayaa kadib soo bandhigistii Eden Hazard waxa ay ku qaylinayeen in garoonka la keeno oo kooxda Real Madrid lagu soo biiriyo ciyaaryahan kale oo muhiim ah. taageerayaasha kooxda Real ayaa waxa ay soo xusheen ciyaaryahanka ay u baahan yihiin haatan Real Madrid inay ka dhimantaan ay dareemayaan. waa ciyaaryahanka weerarka uga dheela kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe. ku dhawaad qiyaastii 40,000 oo taageerayaal kooxda Real Madrid ayaa soo xaadiray garoonka Santiago Bernabeu si ay kaliya u soo dhaweeyaan laacibka reer Belgium ee Eden Hazard. taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa aad ugu qaylinayay in ay doonayaan Kylian Mbappe waxayna dhahayeen waan jecelnahay Mbappe waa in la keenaa kooxda. yeelkeedii magaca Kylian Mbappe ayaa si xoogan loola xiriirinayaa dhawaanahanba inuu ku biiriyo kooxda Real Madrid inta lagu guda jiro xagaagan. dhawaan ayuuna shuruudo waaweyn oo adag hor dhigay kooxdiisa Paris Saint-Germain si haddii ay fulin waayaan uu uga tago kooxda uu ugu biiro Real Madrid. warbaahinta ayaa ku waramaya haatan Mbappe inuu aad u doonayo in uu u dhaqaaqo dhanka iyo Realka Spain isla markaana uu u ciyaaro kooxda Real Madrid. si uu arintaasi ugu suura gashana waxa la leeyahay waxa uu cadaadis ku saaraya kooxdiisa PSG in ay fududeeyaan oo ay u ogolaadaan inuu ka tago kooxda. bal haddii aan dhinaca kala fiirnana kooxda Manchester United ayaa cabsi ka qabta in ay kooxda ka baxaan labada ciyaaryahan ee muhiimka u ah David De Gea iyo Marcus Rashford. waxay ka warwaraysaa ama ay ka cabsi qabtaa United in xidigaha kooxdeeda muhiimka u ah ee labadaasi xidig aan kor ku sheegay aysan haatan u dhaweyn heshiis kordhin inay u sameeyaan kooxdooda. majalada Sun Sports ayaa ku waramaysa in United ay ka walwalsan tahay labada xidig in laga qaato maadaama ay diideen ama aysan haatan doonayn inay heshiis kordhin u sameeyaan kooxda isla markaana ay ku adkaysanayaan in ay iskaga tagaan kooxda Manchester United. warar laga helayo dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in lala xiriirinayo David De Gea kooxda Paris Saint-Germain inuu gool ku qabto halka Marcus Rashfordna ay aad u doonayso kooxda Barcelona oo 100 milyan oo geni ku raadinaysa. hagaag daawadayaal wararka subaxnimo ee xogta ciyaaraha halka ayaan ku soo gabagabeynayaa. daawade fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe noo saar
gambaleelkana furo si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee dhanka isboortiga mahadsanidin.